ugu horeyn waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo gudoomiye Cumar Maxamed Cumar Finish oo intii aan xukuumadii hore ku jiray oo dastuurka ka shaqeynay arrimaha bulshadaba aanu si dhow wada shaqeynay run ahaantii gudoomiye ma ahayne oday Soomaaliyeed buu ahaa isaga oo qadiyadaha iyo arrimaha gobolkan uu mudan yahay madal walba u taaganna waanu soo joogay waxa qabadkiisina maanta halkan uu inaga soo bandhigay taariikhdana way xusu doontaa waxaynu jeclaan lahayn dhammaanteen markaynu mahad celinno adeega uu fidiyay magaalo madaxda iyo gobolka Banaadir inta ka sokow dabcan gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo aan ku cusbayn xilkan soo dhaweyn iyo duco inaga muday in loogu duceeyo xilka culus halkan waxaan u malaynayaa malaaq uu ahaaye ninka xamar loo dhiibay iyo Banaadir waxba kama dhacanin dalka maamul la yiri oo dhowr siyoodba de magaalo madaxda waa meesha kaliya caawa hadii dadka halkan fadhiya la eego dad reer Muqdisho uma badnee 18 gobol dalka dadkii ka soo jeeday baa jooga wax garadkii baa jooga baa mushtarigii baa joogta culimadii baa joogta saraakiishii baa joogta marka fursad aanu meeyar magaalo kale helin ayuu haystaa qofka halkan meeyarkii muunad Soomaaliya muunada ayuu ka shaqeynay marka gudoomiyuhu waa kii shirabka inoogu tuuray horta shirabka waa fahma inaan tiriyo ba wax yar iga hadhay waxaan soo xasuustay 1970yadii goor aan u malaynaya ama 80yadii ayaa abwaankii weynaa Allah u naxariistay Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo dhawaan u geeriyooday ayaa xamar buu gabay u mariyay marka gabayga waxa la yiraahdaa xamar ee nabadba waxa kamid ahayd midhaha xuduntii dalkayga ay xaruntii dadkayga ay xamar ee nabadba xidigtii bahdeedii iyo xubnaheeda kala maqan u ahayd xasuustee sumadooda xaynkiyo shanta gees ku xidhatay xamar ee nabadba laamaha xorriyadii iyo xayndaabka calankee xijinaya dhalashada xididkay ka beermaan xinjir laga waraabshay waa 70yadii wuxuu ku dhashay abwaanku cirifka magaalada Burco Buuhoodle iyo inta u dhaxaysa baan u maleynayaa Burco gobolka Togdheer laakiin dhadhan iyo astaan gaar ah xamar u lahayd waayo badan bay xamar soo martay daartan kaliya ba ka turjumaysa taariikhaha la soo maray xilliyo ay ajarib ka talinayeen xilliyo dimuqraadi lagu dhaqayay xilliyo nidaam military ay ku hoos noolayd xilliyo colaad sokeeye la galay iyo caawa aynu halkan joogno oo ay intaas soo meeyaro iyo gudoomiyaal isu soo dhiibayeen xilalka waxa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa inay soo hagaagayso xaaladda dalka oo mas'uulka ka dambeeya wixii uu dhisay wax ku sii dhisi doono dhowr 20 kalaami ee uu dhameeyay gudoomiye Cumar waxaan u malaynayaa 40 baa laga rabaa gudoomiyaha hadda xilka qabtana waxa rabaa inaan dul istaago bal dawladda federaalka oo ay magaaladan xamar iyo gobolkan uu martigeliyo oo ku shaqeysa aragtida ay ka qabto siyaasadda guud ee dalka oo saameynaysa maamulka halkan madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu halbeeg ka dhigay ama oraahda uu doorashada ku soo galay waxay ahayd Soomaali heshiisa dunidana heshiis la wuxuu kaloo ahmiyad siiyay visionkiisa la dagaalanka argagixisada iyo in laga xoreeyo deegaanada Soomaaliyeed cadawga gacanta ku haya wuxuu kaloo isna xusay in la helo isku filnaansho dhaqaale iyo dib u heshiisiin dhaba horta intaas oo dhan meesha la rabo awalan in laga fuliyaa waa magaalo madaxda oo muunad u noqonaysa inta kale waxaan hubaa hoggaanka cusub ee qabsaday inuu ku sheegan yahay daraal oo madaalaba la yiraahdo waxaan u maleynayaa halbeegyada inuu wax badan ka dhalin doono xukuumadda barnaamijka ay geysay baarlamaanka dan qaranna waxay u bedeshay barnaamijyo
aragtida madaxweynuhu uu lahaa. waxaa la rabaa markaa magaaladan muqdisho ah amnigeedana in kaamil laga dhigo ka deegaanada ku hareeraysanna la sugo. waad ogtihiin dalka guud ahaan dib u xoreyn baa ka socota, abaaraha ka jira, colaad baa meelo badan ka jirta. waxaa muhiima halkan oo maanta aynu xil ku kala wareejinayno oo lagu dabaaldegayo sida guddoomiyihiiba uu xusay, dalkan dad badan oo walaalaheena ayaa magaalada cidhifiyadeeda iyo inta ka shishaysaba caawa ku baahan oo abaar baa ka jirta. waxaa laga dhawaajiyey magaalada muqdisho inay ugu dad badan tahay, ugu hanti badan tahay. hantidaa iyo cududdaa in dadka Soomaaliyeed ee baahan looga faa'iideeyo baa la rabaa. guddida abaaraha ee xukuumaddu ay samaysay, ee culimmadu ay ku jirto, ee ganacsatadu ay ku jirto, waxaa la rabaa bulshaweynta gobolkan ku dhaqanaya guud ahaan dadka Soomaaliyeedba inay la shaqeeyaan oo la gaadho dadka inta aanay xaaladoodu ka adkaantay hadda ku jiraan. guddoomiye waxaan leeyahay wasiir Axmed Fiqi iyo mas'uuliyiin kale oo guddida ku jirta halkan fadhida, waxaan rabaa arrintaana inaan xaqa iska ridno, ummadda aanu gaadhsiino, dadka ha loo gurmado. haddii Sweden iyo Faransiis iyo ajaanib ay u soo gurmanayso, adigoo walaalkaana waad u gurman kartaa. lama heli karo in suuqyada magaalooyinka waaweyn ay camirnaadaan, magaalada cidhifyadeeda iyo miyigana dadka ay ku laanayaan. labadaa iskuma heli karno. hadhowna ma odhan karno Soomaali baan nahay oo dadkaan ugu mudannahay. arrintaasina waa iga dhambaal aan dadka u dirayo. gobolka Banaadir wasiirkaa ka dhawaajiyey xuquuq buu leeyahay, matalaad inuu helo ayuu u baahan yahay. qodobka dastuurigaana in la soo idlayo dib-u-eegista dastuurka lagu sugo maqaamka magaalada muqdisho waa lagama maarmaan. waa su'aalaha waaweyn ee in laga jawaabo ay ka mid tahay xagga dastuurka. tan labaad, dee gobolkani adeeg badan buu bixiyaa. waxaan qirayaa anigu dowladdii horena waan ku jiray. haddii aad maqashaan barnaamijka diin cafinta, haddii aad maqashaan dhaqaalihii baa kobcay, waa cashuurta gobolka Banaadir oo laga qaado. taas ayaa lagu kabi jiray dhaqaalaha iyo shuruudaha dalkan lagu xidho. dee laakiin waxa la yidhi nimco waliba nusqaan leh. mar haddii dowladdii federaalka aad martigelinaysaan, waxaa laga yaabaa xagga cashuurta iyo hawshuna inay ku dhacdo dadka. laakiin waa privilege ama sharaf ay magaaladan keliya haysato inay dowladdii martigeliso. xagga dowladduna indha naxariis leh bay ku eegi doontaa arrimaha adeega. mar dhoweed baan guddoomiyaha wareysanayay, 30,000 oo arday baa ka baxay iskuulaadka sanadkan. sanadkii horena 30,000 baa ka baxay, sanadkii ku horeyna 30,000 baa ka baxay. intaasba shaqo abuur bay rabaan, dadaal bay rabaan. dowladda federaalku dadka ku dhaqan gobolka Banaadir inay helaan adeegyo si weyn bay ula shaqayn doontaa. arrimaha infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalahana waxbaa laga qaban doonaa. guul baan u rajaynaya guddoomiyaha insha allahu tacaala iyo gobonnimo. dadkuna inay si kaliya laaba ula shaqeeyaan ayaa dhammaanteen aanu kula dardaaranay. insha allahu tacaala khayr baynu rajaynaynaa inaynu kala kulmo.